cadawgaaga ugu horeeya waa qoyskaaga waa dalay bantahay Soomahan waa marka lagu fiiriyo indhaha dhaqaalaha ma sa ogtahay inaad ku jirtid xayndaabka faqriga haddii aad tahay qofka kaliya ee qoyskiina u shaqeeya lacag kasta ay aad qaadatidna ay adag tahay inaad horumar gaartid muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa macluumaad baraarujin ah oo taabanaya xaaladdeena shaqo iyo dhaqaale waxaan idinka codsanayaa inaad si faafisaan oo aad sheer dhahdaan si wacyiga bulshadeena uu sare u qaadmo هذا مركو حتى اسكو حراها سوق يعدينا بس ساسوا لو بقولوا سوق كنت إذا عدينا سيسال وحا ريسك اللي هذا كابيتال مقبتين قف جناعس وحو قبل المال ويلان متين ولي الله وضمان فقرك وحاوه الصومالي يمكن وانا اسكو تقني ليوا انا اسكو تقني وحبه سنين ليوا الصومالي لو شيء xirfadda iyo shaqo la'aanta Soomaaliya ayaa looga hadlay barnaamijka Astaan Talk oo lagu qabtay Muqdisho dhawaan Ustaad Maxamed Muuse Xasan oo ganacsiga iyo dhaqaalaha ku xeel dheer ayaa marti ku ahaa oo hadal cilmiyeysan jeediyay waxa barnaamijka uu banaanka keenay in marxaladda dhaqaale ee Soomaaliya iyo tan shaqo iyo xirfadeedba ay tahay mid u baahan in fadhiga laga kaco yacni aan wax ka bedelno sida aan u dhaqanno marka loo fiiriyo xagga shaqooyinka gaar ahaan dhalinyaradeenna tusaale waxaa jirta in dawladda Japan ay baaris ku shaacisay in Soomaaliya waa qofka Soomaaliga ah uu neceb yahay inuu qabto shaqooyinka gacanta ee farsamada ah dadkeenna waxaa laga helaa qof baahan qoyskiisu baahan yihiin oo faqri ah haddana iskala weyn in uu shaqooyinka qaar qabto sida xamaaliga ama xitaa ka shaqaynta maqaayadaha waxaana taabadarkeed ay door bidayaan shaqooyinka fadhiga iyo mukayfka ama si kale hadaan u dhigno shaqooyinka sahlan oo ay sharaf u arkaan dooqiina naftirkiis iyo dalku isdiida marqaa jaamacada ka baxday waxa rabta inaa hormuud ka bilaawid ama UNDP ka bilaawid haddaysa ahaan gurigiina joogay ساسميسمه Soomaalida cilmi baaris waxa jirta ay sameysay dawladda Japan waxay rabtay in Soomaali sabot gareyso waxay tiri marka qofka dhalinyarada Soomaaliga ah dooqiisa iyo muxuu jecel yahay la soo fiiriyo 2017 ka bal marka la ila daabo in yar oo sharaxaada xayndaabka faqriga ah ee aan badankeen ku noolnahay concept waxa jira la hayo xayndaabka faqriga maxaa waay waxa barane jaamacada ka bixi ciidiin adaa ugu horeysid waxa ka soo baxday marka goobo faqri oo yaa ku jiro oo ida aabaha walaalka walaasha adeerka abtiga kulli xeyndaabkan ka wada buuxaan kulligood faqiir waay adaa marka jaamic baratay bishii waxa lagu qoray $500 marka waa ka soo baxday maaho naaw $500 marka meeshaan ruugeys saaxiibayaal runtii markaad in badan u fiirsato xaaladda dhaqankeena dhanka dhaqaalaha shaqo raadinta shaqada sida aan qabanno iyo sidoo kale waaqica dalkeena ka jira waa wax runtii u baahan in aan wax badan iska bedelno gaar ahaan waxay la tahay inaan u baahannahay inaan helno jiil xirfadlayaal ah oo shaqooyinka gacanta ee farsamada iyo dhan kastaba shaqo ka qabta oo muhiimadoodu tahay shaqada ee aysan ahayn sharafta la sheegayo ee istustuska iyo waxa aan xaqiiqada dhabta ah ahayn mar kale ayaan idinka mahadcelinayaa muuqaalkan soo daawateen aan ku soo gabagabeeyo 5 sano ayaad shaqaynaysaa waxaad sa tahay isku xiraha suuqa iyo qoyskaaga 5 sano shaqaysaa maalin kasta mishaar qaadata reerkaada kula cuno wax saving ku yaala ma leh faqriga agtiisa joogta nolosha haday shock imaado marka xaasa guura imaado waa guursanaya lagu dhahay Soomaaliya hadda arooska 10 iyo waad mahadsantihiin inaad daawateen muuqaalkan waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale Astaan oo barnaamijkan marti gelisay dhalinyaradii daawatay ee martida ahayd Ustaad Maxamed Muuse iyo sidoo kale in Allah intii danaynaysa in xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya inagoo iskaashanayna wax ka bedelno cidii barnaamijkan rabta inay isagoo dhameystiran daawato YouTube ka Astaan aad ka heli kartaan. Assalaamu calaykum.